xubnaha ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kula hadlayay TV-ga Som News ayaa waxay tacsiye u direen geeridii ku timid ciyaaryahan Cabdi Maxamed Maxamuud Cige oo ka tirsanaa xulka qaranka Soomaaliya. warkan waxaa mar kale faahfaahinaya wariyaheena Xasan Kaahiye. xubno ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka tacsiyeen geeridii ku timid Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Maxamuud Cige oo kamid ahaa ciyaaryahanadii u ciyaarayay xulka qaranka. Cabdi Maxamed Maxamuud Cige ayaa horay waxa uu qayb ugu ahaa xulka kubadda kolayga ee qaranka Soomaaliya, sidoo kale waxa uu soo ciyaaray kooxda Janyo. ciyaaryahankan geeriyooday oo si weyn ay u yaqaaneen bahda isboortiga ayaa waxa xubnihii ka tacsiyeeyay qayb ka ahaa xildhibaan Dahaba Suusow oo qayb ka xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xildhibaan Dahaba Suusow oo la hadashay Som News TV ayaana tilmaantay in geerida ku timi marxuum Cabdi Maxamed Maxamuud Cige ay ugu tacsiyeynayso guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkaan waxaan ugu tacsiyeynaa dhammaan ehelada, caruurtiisa, qaraabadiisa, macallinkeyga macallin Cabdullaahi Cabdi Dheere Janyo oo geeriyooday xalay. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halaha u naxariista dhammaan anoo ku hadlaa codka isboortiga Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, gaar ahaan kubadda kolayga. waxaan leeyahay dhammaan tacsiid way noo wada taalaa inta dal iyo dibadda joogta. ilaahay ha naga qaalo dhammaanteena sabr iyo maalaan si asana jannadii firdaws Allah ka waraabi macallinkeeni intii isboorti ee dal iyo dibadda joogta. waxaan leenahay ha loo duceeyo, noogu duceeyo macallinkeena Cabdi Dheere. ilaahay ha u naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyo. ciyaaryahankan geeriyooday ayaa lagu xusuustaa ka qayb qaadashadii uu ka qayb qaatay xulalkii matalayay Soomaaliya, kuwaas oo dalal ka tirsan caalamka ugu qayb galay kubadda kolayga. Xasan Kaahiye, Som News TV, Muqdisho.